عيانتا iyo iida wanaagsan alla maanta ayaanta iyo iida wanaagsan ilaahayna siiyey isagaa ku abaan تعالى وبركاته كلنتي حيسة للداوديال ميل كستها نجا داودي سانكون سو دوادا تلفزيون قرن كسوماليد وبرنامج جاره oo ku saabsan sida looga ciiday magaalada London waxa barnaamijkan idin soo tabinaya anigu waa Maxamuud Maxamed Xasan Maxamed Buucame dhaga kaamirada waa Najiib Silfa hadda ku soo dhawaada waa kan barnaamijkii waa tahay daawadayaal waxaan wanaagsan lahaantii meel kasta aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijka ciidka magaalada London haddaba iminka waxaan ku sugannahay xaafadda Shababush ee magaalada London waxaan noo soo tagashay inaan haddaba qaar ka mid ah Soomaalida degan xaafadda Shababush aanu kula kulanno xaafaddaasi walaal marka hore ku soo dhaw TV qaranka Soomaaliyeed waa ku soo dhawahay waana ku mahadsantahay sida ku wanaagsanad iyo martiqaaday maanta waxaan u dabaaldegaynaa waa maalintii ciidda wanaagsaneed ee Ciidul Adha alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaan halkan maadaama fursad aad siisaan uga dabaaldegayaa maalinta ciidda familygayga oo jooga magaalada Muqdisho dhamaantood waa wada salaaman yihiin alxamdulillaah rabbil caalamiin si fiican ayaan loo ciiday waana soo dukanay waxaan kaloo salaamayaa xaaskayga Ikraan Qadar Xasan iyo caruurtayda Shukri Abdixakiim Maxamed Muuse Amaal Abdixakiim Maxamed Muuse Allah musta'an Maryam Yariisay tan ugu yar ah iyadana iyo Cayni iyo lamaan intii taqaano oo dhan ma santa Maryam ya salaamsa awoow ayaan salaamayaa ayaan salaamayaa ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وكرتي أب ما سنتها أدي ما سنتها وحنا كلوا مان أمد الصوماليين إلى مان أنتي إسلام كأن هالكن وقام بلينا كل عام وأنتم خير عيدا كوارا نبتقليو يو نحريس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمة ستين هذه كلمات أماتين اللي رضي يركاو تي في قدومية وأنا كم ستين السلام عليكم عيد وأحسن داود يلا نروح برتماك يجينا برنامجك عيد يو سلامها وحنا ما كنت سجلنا هاي حافظها Shababush جارهان مخايد عان كهاي إدم الريستورانت هذا واحد جعل الله هنا نديسه قد بنا بالقار كم شغالها كهول الكلام ما هو الولد أما ما لحظة سرسلة مخايدنا مرستورانت كان إدم الريستورانت متكملة ولا المكورة كسر تي في قرن كصوماليد عدو كبلاب يا مجا عاجا يو ما أنت ومالين عيدة ومالين فرحة يا جعل شال كرينا حنبلية يسلام ودرتو ولا واحد موسى هذا عرتن موسى ما أنت ومالين فرحة ومالين عيدة بعض أما هؤلاء أما شغالها إدم الريستورانت يعني هذا كسوقنا هاي مركا ما حاجة عشان كان يا جعل شال كذا كسلانت دمان أمد الصوماليات قارن أصحابتي دي فاميل كيجا مركا عيد وناكسن كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. وأنا وناكسن عيد وناكسن كل عام وأنتم بخير داود يال ملك السعد نقد داون إنسان هل كان نقد داون إنسان نوا تلفزيون قرن كالصوماليات ولو إحنا كسوقنا هاي حافظة Shababush مقالة لندن وحالك تاجين أدو الصوماليات هذا مركور مقعاجا وحلا عوكو حسن عبدي عوكو كسودو تي في قرن كالصوماليات ما أنت ومالي وين ومالي عيد ومالي فرحات يا تعيش هل كان نقد كسلانتو وان سلام يا صومالي أردن واني كلا سعنين وحن لا عيد مبارك كلكم أنتم بخيرين إن شاء الله كل سنة وأنتم بخيرين كل سنة وأنتم بخيرين إن شاء الله تعالى وناكسن يا أرق وناكسن كل ذنب ويا سيقولوا السلام عليكم كل صومالي ما سلام عيد قولوا ولبح يا مدرت واتاي ما سده هذا داود انت انا كسومين حافظه Shababush magaalada London ayaan waxaan noo suurtagashay inaan la kulano mid kamid ah abwaanada da'da yar ee Soomaaliyeed ee ku nool magaalada London waan Cabdiraxmaan Sheekh Axmed Gaas abwaan markii hore ku soo dhaw TV qaranka Soomaaliyeed السلام عليكم وعليكم السلام يا بني سلام يا كل عام بخير عيد ولا سوي هاي نوغا دغو تيدا كلي تولay خير يا عافمad hanu gaarsiyo waxaan leeyahay waxaan caalam islaamka iyo carabigeeda hooyiyo ummadeeda caanka ciid wanaagsan ku leeyahay caafimaad dheer inay ku waaraan nabad lagu caweeyo farxad lagu ciyaariyo kulli in ay khayr inoo noqoto insha Allah billahi kareem waxaan ka salaamayaa hooyada walifka ugu jeclay Ruux Xaaji Axmed walaashay iyo reer Sheekh Axmed Gaas oo dhan caruurtayda hooyadood Faysal Jaamac Aadan
ladan baan salaamayaa culubteeda yar iyo carruurteeda eheladeeda qaraabadeeda naslahayde iyo qamar hayde iyo odaygeeda kulli waa wada salaamaya walaal waxaan leeyahay ilaahay ha inooga dhigo ciiddii waddankeena iyo dalkeena uu dego insha allahu biinallaahi kariim telefishinka soomaaliya ee qarankana waan salaamayaa waa salaamantiini aad uga sawaan daawadayaal waxaa kaloo noo suurtagashay inaan la kulanno mid ka mid ah dadka Soomaaliyeed ku nool xaafadda Shababush waa Awil Jaabac marka hore ku soo dhaw TV qaranka Soomaaliyeed assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu horta waa salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto qaasatan waalidiinteyda iyo ehelkeyga iyo carruurteyda dhammaan waa wada salaamayaa waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta ay tahay maalin ciid ah oo aad iyo aad maanta maaragtay aad aan ugu faraxsannahay annagoo maaragtay haddaan nahay dadka ku dhaqan maaragtay West London oon ku faraxsannahay ciiddii islaamka ahayd ciiddii xajka ahayd alxamdulilah rabbil caalamiin si fiican aan u ciidnay si fiican aan maaragtay maanta aad iyo aad maaragtay ayaan uga qayb galnay maaragtay farxadaha ciidda waan gartay ciidan ciidii horaad ku sugan magaalada London iyo ciidan waxay kaga duwan tahay ciidii hore waxay kaga duwan tahay ciidan maaragtay ciid dadku dhan ay aad isku marxabeynayeen ahayd oo dadku dhan maaragtay aad ugu faraxsanaayeen oo maaragtay shucuur badan ay dadku ka muuqato oo maaragtay salaadii xataa maaragtay masjidkii inuu buuxsamay ilaa iyo 4 jeer salaadii aan tukanay maanta aad baad daawada marka alxamdulilah waxaan kaloo maaragtay si qaas ah u salaamayaa waalidiinteyda hooyaday Sukuri Shariif Darbaaxweyne iyo walaalahay dhammaan meel walba ay joogaan oo waa wada salaamayaa waxaan dhahayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aadan u maasantahay walaal marka magacayga Cashe Yuusuf Cali ku soo dhaw TV qaranka Soomaaliyeed maalinta waa maalin ciid ah yaa jeceshay halka ka salaanto waxaan ka salaamayaa ummadda muslimiinta oo dhan ciid mubaarak baan leeyahay family-gayga oo dhan dalkii jooga dadka halkan jooga asxaabtayda oo dhan ciid mubaarak baan leeyahay ummadda muslimiinta oo dhan waxa la bashbashay barwaaqo ka ciida adiga hooyo salaan Hargeysa ciid mubaarak yaa ugu dhaxay walaasha Foos Hargeysa joogta carruurteedii walaalkay dhalay oo iyaguna ka dhaw jooga Fathiya Fahmi waxaan leeyahay kale maxaad filsan ciid mubaarak baan leeyahay kulligood carruurtii oo dhan family-ga oo dhan iyo idinka walaal way anaguna ku leeyahay ciid mubaarak wali daawadayaal waxaan ku jirnaa barnaamijkii ciidka aan ka soo diyaarinay magaalada London hadda waxaan ku suganahay xaafadda Shababush waxaan ka taagay mid ka mid ah dadka Soomaaliyeed ku nool magaalada London wala marka magacaaga waxaa la dhahaa Cabdilaahi Maxamed Bashir oo ku magac dheer Garaad Cabdilaahi maanta waa maalin ciid ah waa maalin farxadeed yaa jeceshay halka ka salaanto waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan qaraabada Soomaaliyeed oo waalidiinteyda oo hooyaday oo ku nool magaalada Hargeysa Caasha Jaamiyadeen xaaskayga Saara Xasan Dubad carruurteyda Sagal Cabdilaahi Maxamed Saamiya Cabdilaahi Maxamed Cabdilaahi Maxamed iyo walaashay Saamiya Maxamed Dubad iyo Shariifa iyo Sucaad Maxamed Dubad nimca Maxamed Dubad oo ka tagtay maalin London oo ku guurtay magaalada Nairobi iyadana waa salaamaya iyo carruurteeda iyo Cali Ducaale waxa kale oo salaamaya Seedigay Bashiir Yuusuf Bookax oo dhammaan la yaqaan iyo inta aragayga iyo muuqaalkayga taqaana iyo kullu oo allaale wixii muslimiina oo Soomaaliyeed waxa kale oo aan salaamaya saaxiibkay oo aan maqaaxidiisa ag taaganahay oo la yiraahdo Cabdishakuur waxaan ku suganahay xaafadda Shababush dabcan xaafaddu weeye dadka Soomaalida ku nool aad ayay tiro badan yihiin waxaan soo suurtay inaan nimaadno Maxamed oo asagu mulkiilaha barbarka ama timajaraha Max Haircut Maxamed markuu ku soo dhaw TV qaranka Soomaaliyeed ciid wanaagsan dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan u jiraa ciid wanaagsan qaybta TV-ga isna sidoo kale ciid wanaagsan iyo ummadda Soomaaliyeed meel walba ay ku noolyihiin waxa wada ciid wanaagsan sanadkaas waxaan ku rajaynayaa in Ilaahay idinkiisa aan ku wada ciid wanaagsan waxaan halkaan ambali ugu dirayaa dhammaan family-gayga gaar ahaan wiilashayda oo ku kala nool Uganda iyo dalka Ingiriiska oo la yiraahdo Nuur Maxamed Isaaq iyo Shucayb Maxamed Isaaq iyo walaalahay dhammaan oo kala nool Soomaaliya South Africa Kenya iyo wadanka Norway iyo wadanka Denmark oo degan tahay gabadha abtigu ah ayaan Xasan Maxamed kulligiin waxaan leeyahay ciid wanaagsan iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed in kasta oo meel kasta oo joogaan iyo waxaan Soomaaliya ku rajaynayaa sanadkiisa kale inay noqdo wadan qeyr qabo oo aan ku wada ciid insha Allah aad u wanaagsan ciid wanaagsan
واتاي ولي وحنا ku sugannahay waxaan barnaamijka kaga jirnaa barnaamijkii salaamaha ciidka waa markii magacaada walaal maxamed axmed yuusuf oo ku magac dheer maxamed salle maxamed salle markii ku soo dhow TV qaranka Soomaaliyeed maanta waa maalin ciida yaa jecesha halka ka salaanto waxaan jeclahay ummadda muslimiinta dhamaantood aniga ugu hambalyeynaya ciidan qiimaha badan inay mideeda kala barwaaqo iyo nabad iyo qarannimadii Soomaaliya oo soo noqota ay ku gaaraan insha Allah kuna ciidaan waan kartay marka yaa jecesha halkan inaad si khaas ah uga salaanto qaasatan waxaan salaamayaa ummadda muslimiinta ka sokow ulamadeenii mashaaikhdeenii oo Soomaaliya oo ay ka mid yihiin sida sheekayga Sheekh Cali Cilmi Nuur sida sheekayni Sheekh Cabdirasaaq Yuusuf Aadan dhammaantood waxaan leeyahay ilaahay cimri dheer iyo caafimaad iyo cibaado suban ha ku waareen hadii Allah idmo magacaada Aisha salaamsa hooyo aabo Sheekh Cali iyo dadka dhan adigana magaca muna ya salaamsa aabo iyo hooyo Sheekh Cali adi magacaada maxaydiin ya salaamsa hooyaday aabahay waalidkayga waxaan kaloon iloobay waalidiintiina dhashay sida aabahay Axmed Yuusuf Aybakar hooyada Xabiiba Aadan Qorane adeerayaashii dhammaantood ehelada dhan way salaamayaan insha Allah waxaan leeyahay ciidan ciideeda kale nabad ku gaar insha Allah barwaaqo ciid mubaarak waa mahadsantahay واتاي داودة اللي هو سجلنا هاي مخيط عانكا اللي هذا بلو أوشن هرتيرا وكنت على حالات شو بوش متكمدة الشيخ حسن مركز ركوسو دو تي في قرية الصومالية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدي أدا ما زنتين ما أنت هو مالي عيد حسنو ومالي فرحانيد يا جعل شركة سلامته والله ما أنت حار ويرنتي دلت المسلمين تقول وما أنت جوان الصومالية خاصة إني محل عيد وناكسن الحمد لله دولة عصب ماشي هذا التمد وحن كرجينا إن شاء الله إني شرع الإسلام كيسكو حكمان مركا دل كان أولا مشاكل كي وحيالات وكل وحن جعلها إني كتاب كلا يسويس أولابطان واتاي يا سيقلو سلام سالك ما دام دمال عيدة وحا سلام لها مانتا سلامتا يقدمون إن شاء الله دل كيجي أو جوان عالك بيها ولا شيء سعدية أبو نور وأن سلام دريا مانتو عيد وناكسن إلهي إن شاء الله إلهي نسلك كل ميو سنة كان سنة وناكسن إلهي نوديه دم دافن إلهي ومد إلى وديه أمين نورا ما سنت الله مدن داود يلا وحنا كسر قلنا هاي مخايد عانكا بلوشيان هذا واحد نوصل تجشقار كم إذا دتك مكاه والكلام مخايد بلوشيان إلى نمارتي وحكوا دينه يصير عيد دتك سلام يعني ولا مكان مقعد مقعد حلي له ولا محمد سعيد موسى أو كم عدد محمد شينو عيد الأضحى وحول أرجعنا عيد ونكسن ومد المسلمين كمان كسر الجوان عالم كه عيد ونكسن وحالك كسلام يا دمان ومد المسلمين كمان كسر الجوان قارها وحن سلام يا ومد الصوماليين المسلمين كه ومركز عالم كتوسعي قارها مسلمين الصومالي كنول يا سخاء سلام محمود halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan horta ehelay qaraawada dhammaan markas ay joogaan waxaan ka halkan ka salaamayaa hooyada Dahaw Muuse Guuleed walaashii Hoodan Saciid Muuse walaashii Sahara Saciid Muuse walaashii Saciid Muuse walaalkii Guuleed Saciid Muuse xaaskiga qaaliga Xamdi Cabdi Qeex caruurteeda Saciid Maxamed Saciid gabadheeda Maryam Maxamed Saciid Raxmo Maxamed Saciid iyo dhammaan Sundus Maxamed Saciid iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed markas ay joogaan salaamayaa gaar ahaan Soomaalida ku nool UK نورك سلام برسنت واتهاي داود يال waxay miga ku sugannahay xaafada Acton ee ku taala magaalada London xaafada Acton ayaa xaafada Soomaalidu ay aad ugu badan tahay hadaba waxa noo suurta gashay inaanu la kulanno qaar ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada London xaafada Acton ee walaal marka magacaaga waxa la yiraahdaa bismillaahir rahmaanir rahiim Xamza Sheekh Cabdullaahi Cusmaan xabsu marka hore ku soo TV qaranka Soomaaliyeed maanta waa maalin ciid waa maalin weyn waa maalin farxadeed yaa jeceshahay ka saanta xabsu aad ayaad u mahadsantahay waxaan jeclahay halkan inaan ka salaamo ummadda Soomaaliyeed oo dhan oo aan leeyahay muslimiinta ciid wanaagsan waxaan si gaar ah u salaamayaa waalidkay aabahay xaasaskayga aamina iyo xalwa caruurtayda walaalahay dhammaan asxaabtayda inta taqaana waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciideeda ku gaara sama iyo khayr wali waxnu ku sugannahay xaafada Acton
waxaa haddaba noo suurta gashay inaan xaafaddaas kula kulanno fanaan weyn oo dadku aad ugu wada garanayaan dabcan fanaanka inta badan stuudio ayuu noogu iman jiray waanu ku martiqaadi jirnay maanta waxaanu jaalis u helnay isagoo luweynayaa inaan jidka helnay cabsagaa duco ku soo dhigan TV qaranka Soomaaliyeed waa maasantaa walaal waxaan wax ku leeyahay ciid wanaagsan horta ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogtana waxaa leeyahay ciid wanaagsan laakiin meel dariiq aan maraad gaadeen laakiin dhimanahay wax ka aad maasantiin waa gartay gaadacay maanta waa maalin weyn waa maalin farxad maalin ciid dabcan adii lafteeda waa ciid maanta saan kugu jeedno yaa jacashaa ka salaanta ciidka والله عيد كان وحن كسر يا مدة الصومالي مركز شوكته وحلا عيد ونكسن وحن كلا السلام يا شعب كصومالي والسلام يا فنانين الصومالي مركز جوا والسلام يا أصحابتي إذا مركز سعودية كمديين أنت فنك عيسى وحلا عيد ونكسن عيد مبارك عيد وربنا كلنا عيد إذا مش بروك أنا بقول شنو إحنا بطبع كيجنا برامج عيد كي سلامها وحن كسبنا هاي حافظة أكثر وحن لكم إن مدر غيرها ومجلس اللي هذا أحمد نوح أحمد نوح مركور كسودو TV قرن الصومالية aad baan u dhawahay boocame aad baan ku salaamayaa adiga iyo shaqaalaha TV-ga dhammaan iyo ummadda Soomaaliyeedba waxaan idin leeyahay ciid mubaarak waa yoomul farax yoomul khayr weeye waxaan leeyahay ciid mubaarak adiga iyo shaqaalaha iyo ummadda Soomaaliyeedba waa tahay Axmed waa maalin ciid waa maalin meel fasaad u sheegtay yaad jacashahay inaad kaga faa'iideysto jaaniskan oo halka ka salaanto waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan salaamayaa dhammaan ummadda islaamka ah gaar ahaan Soomaalida waxaan salaamayaa waalidiintay aabaha iyo hooyaday waxaan salaamayaa xaaskayga iyo carruurtayda waxaan salaamayaa walaalahay waxaan salaamayaa dhammaan inta magacayga iyo muuqayga taqaana waxaan leeyahay farxad ku ciida khayr ku ciida ilaahay ciidan ciideedana haynagu gaasiyo nimco bashbash iyo barwaaqo iyo nabadgelyo iyo dawlad Soomaaliyeed oo taama oo dhalata oo wadankoo dhan si caam ah uga wada talisa aad baan idin salaamayaa idinkana aad waa santaa walaal marka hore adiga magacaaga wastaxan walaal waxa la yiraahdaa Maxamed Ciise ku soo dhow TV qaranka Soomaaliyeed maanta waa maalin weyn waa maalin farxadeed yaa jeceshahay inaad halkan ka salaanto walaal waxaan horta waa ku salaamay boocame waxaan salaamayaa TV qaranka shaqaalihiisa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto iyo ummadda islaamka oo dhan oo dunida ku nool waan gartay yaad si khaas ah ama si gaar ah u salaamaysaa waxaan halkan ka salaamayaa hooyaday Xawa Cabdiraxmaan abaay Ciise Cali Daar dhammaan carruurtayda xaaskayga iyo dhammaan wixii iyo wixii muuqayga iyo wajigayga yaqaan way aad baa isdayso tahay daawadayaal ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhair wali waxnu bartamaha ka jirnaa barnaamijkii ciidka iyo salaamaha imanka waxaynu ku sugannahay xaafadda Acton ee magaalada London haddaba waxaa noo suurta gashay inaanu la kulanno qaar ka mid ah dadka xaafaddaasi ku dhaqan waa Cumar Daawus aan filayo in badan dadka Soomaaliyeed aad u wada garanayaan Cumar Daawus marka hore ku soo dhaw TV qaranka Soomaaliyeed maanta waa maalin ciideed waa maalin farxadeed yaa jeceshahay ka salaanto adeer wariyo waa horta marka ugu horeeya waad mahadsan tahay salaanta ugu horeeyana cidaan siinaya waxa weeye waa adiga wariyayaasha kale waxaan salaamayaa doonayaa inaan salaamo horta wax allaale wixii codkayga maanta dhageysanaya iyo wax allaale wixii muslim oo dhan special Soomaalida waxaan kale doonayaa inaan salaamo dadkayga oo dhan xaasaskayga carruurahayga hal kuma oran karo muxuu ahaayay midmidii kuma soo qaban karo dadku waa fara badan yahay waxaan doonayaa inaan salaamo oo kale xalaaleeyo wixii dhageysanaya inaan salaamo ayaan doonayaa maanta ciidka aan iraahdo ciid mubaarak kull caamatu bikhair iyo sidaa iyo deeyo hadal maalin wanaagsan waa taanayna wax kulana ciidana waa tahay walaal marka hore magacaaga بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وعبد الرزاق حسين سني عبد marka hore ku soo dhow TV qaranka Soomaaliyeed maanta waa maalin ciid waa maalin farxadeed dabcan wajidna dadku wada ciidsiin marka maalinta farxadeed yaad kala qayb qaadanaysaa ama halka salaamaysaa halkan waxaan ka salaamayaa marka hore hooyadeen salaamayaa culamo Cali Axmed waxaan kaloo salaamayaa xaaskayga Nasra dhammaan carruurteedo dhan iyo all family-kayga adiga magacaaga anigana Cabdi Rasaaq Taaliil Muumin yaalka salaamsa halka ka salaamaya hooyaday Xawd Ducaale iyo xaaskayga Ubax Abdullaahi iyo ilmahayga dhan iyo walaalahayga dhan oo London wada jooga waxaan leeyahay ciid wanaagsan ku waa tahay absaaqina waxaan filayaa in iyagu ku taawan doonaan salaantana ka qaadi doonaan aad ma santin ciid wanaagsan ciid mubaarak mar kale ciid mubaarak
وحنا برتماع كيجرنا برنامجك عيدك iyo salaamaha oo inta kaga imanaya magaalada London imanka waxaan ku suganahay xaafada Acton ee magaalada London waxa kamid ah Axmed Maxamed Jaamac oo kamid ah dadka ku nool xaafadan Acton Axmed waxa jaawac maanta waa maalin ciid oo maalin farxadeed يا شهر السلام والله سنتاي أبو عمي سلام عيد مبارك دمان دتك مسلمين تا يدتك الصومالي بدن ملي شوغان با waxaan jeclaan lahaa halka inaan ka salaamo waalidkii oran muddo dheer arag oo Soomaaliya ku nool iyo walaalahay waxaan leeyahay ciid mubaarak ilaahay caafimaad hayna u gaarsiiyo ciideeda kale salaamu calaykum waraxmatullaahi waa gartay waxa ka kamid ah Xuseen Cabdboos maanta waa maalin ciid oo maalin farxadeed yaa jeclaan ka salaanta waxaan salaamayaa ehelada ku kala nool adduunyada dacaladeeda Soomaaliya Mareykan Canada Europe Scandinavian ka Europe Holland هلادي بaan u dirayaa message ciideed oo farxadeed inay ka qayb galaan marka waxaan Ilaahay uga baryayaa inay u naxariisto oo u dambi dhaafo maalinta ciida ee maalinta farxadeeda marka waxaan halkaas ku soo gabagabeynayaa heladayda kala maqan dalka Soomaaliya aad baan maqnaysaa iyo dalkii Soomaaliya oo dhan baan u dirayaa tahniyad wali bartamaha kaga jirnaa barnaamijkii salaamaha ciidka waxaan ku suganahay wali xaafada Acton waxaan ku suganahay maqaayada weyn ee Crown Cafe hadda mid kamid ah mulkiilayaasha iyo maamulka sare ee maqaayada oo aan kula kulanay maqaayada markii hore ku soo dhaw TV qaranka Soomaaliyeed adiga ku bilaabaya magacaaga maanta waa maalin ciideed waa maalin farxadeed yaa jeceshahay ka salaanto bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore magacaygu waa Axmed Xasan Xaashi marka labaad waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ku nooshahay oo leeyahay ciid wanaagsan iyo nabadgelyo caama Allah nasiyo waa ka baxnay dawlad la'aantii ummadda Soomaaliyeedna waxaan kula dardaarmayaa inay dawladooda aaminaan lana shaqeeyaan waxaan leeyahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ku nooshahay ciid mubaarak marka yaa si khaas u salaamaysaa si khaas waxaan u salaami lahaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed markaan salaamay si khaas waxaan u salaami lahaa family-gayga dhammaan reer Xasan Xaashi meel kasta oo joogaan dalka iyo dibadiisaba marka intaasna waxaan leeyahay si goonihan u salaamayaa inta magacayga muuqayga taana waa salaamayaa dhammaan reer Crown Street way yaqaanaan marka iyagana si gooni ayaan salaam gooni u salaamaya ciid mubaarak ayaan leeyahay waxaan inay ku daawan doonaan dhamaantood anigu waxaan ku leenahay ciid wanaagsan kulli caam aad baqay ciid wanaagsan kulli caam bacanta khayr waxaan kale oo inta raacsanayaa waxaan si gooni u salaamayaa TV-ga qaranka Soomaaliyeed iyo dhalinyarada hawsha wado annaga oo aad ugu faraxsan daawashadiisa TV-ga qaranka Soomaaliyeed kana baxnay TV la'aantiina haystay daawadayaal wali waxaan bartamaha kaga jirnaa barnaamijkii ciidka iyo salaamaha waxaan noo soo tagashay inaanu la kulanno Mawlid Xaaji agaasimiye SPC iyo liwa familkiisa meel markay ku soo dhaw TV qaranka Soomaaliyeed maanta waa maalin ciideed waa maalin farxadeed yaa jeceshahay ka salaanto bismillahir rahmaanir rahiim aad u mahadsantahay Maxamuud adiga iyo dhammaan SNTV waan salaamayaa dhamaantiin ciid mubaarak kullu caam wa antum bil khayr runtii waxaan jeclahay munaasabada inaan uga faa'iideysto inaan ugu horeyn salaamo waalidiintay hooyada iyo aabahay oo Soomaaliya jooga walaalahay iyo qaraabada dhammaan iyo ehelada dhamaantood inaan yiraahdo ciid mubaarak iyo inkasto iyo dhammaan in qof kasta oo muslim ah iyo dadka Soomaaliyeed meel kasta joogan si gaar ah insha Allah waxaan jeclahay inaan ugu yaani hambaliyo saxafiyiinta Soomaaliyeed meel kasta joogan inuu yiraahdo ciid mubaarak maadaama aan isku ardaanahay aad iyo aad saaxiibadii SBC aad iyo aad ugu hambaliyeenahay munaasabada kale ee banu gaarsiiyo bash barwaaq adinkana aad baan idinkaga mahadcelinayaa fursadaas aan siiyay bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan salaamayaa walaalahay dhamaantood joogan Soomaaliya oo lafdan wiil iyo gabar deeyin iyo hooy Safiya Sheekh Axmed Xaaji Cabdi dhammaan Soomaalida dhan oo muslimiinta kul ciid anigoo ah siraad dirigeedi dhamaantood waan salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu assalaamu calaykum magacaygu xalaat Ajfar Mawlid Xajaabti Ajfar Mawlid Xajaabti aldaha waxa salaamayaa reer Soomaaliyeed oo muslimiinta oo dhan ayaa salaamayaa maan ciid waano maan faraxsad la waay waxa salaamayaa habaryar iyo eediya waxaadna salaamayaa iyo Awa Cabdi iyo Safiya Axmed magacayga Cabdifataax Mawlid Xaaji Cabdillah waxaan jeclaanayaa salaan qaali halkan ugu diro dhammaan waalidiinteeda xawriyaal eedayaal adeeryaal abtiyaal iyo ayada Safiya Sheekh Axmed iyo hooyada hodan dirigeedi dhammaan waxaan oran lahaynaa ilaa dhaho ciid wanaagsan kullu caam antum bikhair iyo asxaabteeda dhammaan inta maqalka iyo muuqaalka taqaan aad waa santaa يا سلام يا أبي عيد وanaagsan najaa ciid mubarak يا سلام سلام هاي هاي هلن هاي هدن ما شاء الله هاي
يا كله أيية يا أوه ما شاء الله اوكي ما سنت نقول على عيد ولا كل عام وانتم بخير قولوا قبل ما سنت داوديال ولي وحنا برتماها كيجي جنا برنامج سلامها عيدك waa marka hore magacaaga magacaygu waa qaasim xaaji cabdullaahi fiiqow waayahay qaasim marka hore kusoo dhow TV qaranka Soomaaliyeed maanta waa maalin weyn waa maalin ciideed waa maalin farxadeed yaad jeceshahay halkan inaad uga faa'iideyso fursadan waad ka salaanto fursadan qaaliga wartaan ka faa'iideysana bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala sayidina muhammad dhammaan walaalaha islaamka meel kasta ay joogaan kullu caam wa antum bikhair gaar ahaan walaalaha Soomaaliyeed kuwa yaqaana iyo kuwan aqoonin bay muuqayginta aragtaba kullu waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhair gaar ahaan ehelkayga Xaaji Cabdullaahi Fiiqow meel kasta ay wada joogaan dhammaantoodna waa salaamaya farxadan qaaliga ah sanadkan sanadkiisa insha Allah anagoo nimcadan nimca ka sii weynahaysana iyo wadankeenu hagaagsanaan gaar ahaan gobolkan aan ka soo jeedo Baydhabo dadka jooga waa salaamaya assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waan gartay marka ana afka maameyga dad xir ku salaanto finaan leh wallahi taas waa lama huraan waayo waa luqadeedu koowaad marka waxaan leeyahay reer Baydhabo dhammaantood in salaame fursadan qaaliga in ku faa'iideysada sanadkan sanadiyeen ilaahay barwaaqadan ku fayda qoofkan wadahay in ku faa'iideysan ilaahay adigay walnaha ka suubsan insha Allah assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh xafladana iyagoo ku daawan doonta qaas hadda iska daa bal waa tahay daawadayaal كامل ما كان نجيب سلفة عيان جعلها بلسجنا إلى نقد بيو سوء هالكن وقصرامو إهلدي سي فامر كيس قرابة يسع aad baad mahadsantahay boocame fursadan aad siisay inta badan sida aad ogtahay waxaan daba taaganahay kaamirada oo badan kama soo baxo TV-ga marka aan ka faa'iideysanayo fursadan maalinka ciida ah ee Ciidul Adha waxaan rabaa inaan eheladeyda iyo qaraabadeeda iyo inta maqalkayga iyo muuqaalkayga taqaano aan salaan baahsan u mariyo telefishinka caalamiga ah ee TV-ga qaranka SNTV haddaan gaar ahaan u salaamo ehelkayga waxaan aad u salaamayaa reer Cabdullaahi Barkhalle oo dhan adduunka meel kasta ka joogaan ugu weyn yahay Cabdullaahi Barkhalle uguna yartahay gabadh halka gabar ay yar oo la yiraahdo Hinda magaceedu halkan kuma soo wada koobi karo marka waxaan leeyahay aad baan inii salaamayaa waxaan kaloo salaamayaa asxaabteydii iyo eheladeydii adduunka meel kasta ay ka joogaan anoo ka faa'iideysanaya fursadda maanta maalinta ciida waxaan kaloo salaamayaa dhammaan dadka muslimiinta ee ku nool caalamka inta taqaaniin inta aan qaaninba marka intaas ayaan ku soo xiraya boocamaad waa tahay daawadayaal intaasaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii ciidda iyo salaamaha oo aan idinkaga soo tebinaynay magaalada London barnaamijka waxa ii soo tebinayay anigu waa maxamed xasan maxamed boocame dhanka kaamiradana waa Najiib Sulfa intaan barnaamijkan barnaamij la mid kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo sarag damo xiiso leh wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala الله مانتا عيانتا iyo iida wanaagsan الله مانتا عيانتا iyo iida wanaagsan ilaahayna siiyay isaga ku abaa